cudurka HIV/AIDS oo dawadiisa la helay. qofkii saddexaad oo si dhammaystiran uga bogsaday cudurka Aydhiska. Cilmi baarayaal ku sugan shirweynaha Seattle Conference ee caabuqyada fayruusyada dilaaga ah ama cudurrada dilaaga ah ayaa ku dhawaaqay in qofkii saddexaad uu si dhammaystiran uga bogsaday cudurka HIV/AIDS. Jariidada New Scientist ayaa sheegtay in xogta caafimaad ee bukaan ku sugan gudaha Jarmalka, gaar ahaan magaalada Düsseldorf, ay muujisay in muddo 3 bilood ah oo laga joojiyay isticmaalka daawooyinka kaalmaatiga ah uu si dhammaystiran uga bogsaday cudurka bukaankaasi. Haweeneyda ku takhasustay cilmiga fayruuska amaba cudurrada kana tirsan xarunta caafimaad ee jaamacadda Utrecht University Medical Center. Haweeneydan oo lagu magacaabo Anna Mary Fenson oo ka qayb ahayd dhakhaatiirtii bukaankan daaweynaysay ayaa sheegtay in xaaladda bukaanka ay la mid tahay sida labadii qof ee hore uga bogsaday cudurka Aydhiska. Wadadii daaweyntiisa loo raacayna ay la mid tahay qaabkii loo dabiibay labadii qof ee hore. Sidoo kale qofkii afraad oo isaguna si dhammaystiran looga dabiibay cudurka Aydhiska oo ku sugan dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Bukaan Ingiriiska lagu dabiibayo oo noqday qofkii afraad ee si buuxda uga bogsada cudurka HIV/AIDS, gaar ahaan wadamada reer galbeedka. Bukaan ku sugan dalka Ingiriiska ayaa la filayaa inuu noqday qofkii afraad ee taariikhda wadamadan ee si buuxda uga bogsada fayruuska difaaca jirka wiiqa ee HIV/AIDS. Jariidada Daily Mail ayaa Talaadadii sheegtay in dhakhaatiirtu ay heleen qof mutadawac ah oo leh difaac dabiici ah oo iska caabin kara fayruskan HIV/AIDS. qofkii dhiiggiisa lagu tallaalana uu cudurku si tartiib ah uga baxayo. Qof bukaan ah oo la dhibaatoonaya cudurka HIV/AIDS ayaa lagu beeray stem cell ka kooban dhiigga qofka mutadawaca ah ee dhiiggiisa bixiyay. Arrintaas oo keentay in habdhiskii difaaciisa uu isku bedelo hab uu iskaga caabin karo cudurka Aydhiska. Tanna waxa keenaysa shakhsigaasi dhiiggiisa sadaqad ula baxay oo dhiiggiisa ay ku jiraan unugyo iska celin kara cudurka Aydhiska. Bukaankan reer London oo aan magaciisa la shaacin ayaa cudurka HIV-gu uu ku dhacay 15 sano ka hor. Dhakhaatiirtu waxay go'aansadeen inay bedelaan stem cell-kiisa kadib markii ay kansar ka daaweeyeen 2016. Waxaa xusid mudan in qofkii ugu horeeyay ee taariikhda inta la og yahay ka bogsada Aydhiska uu ahaa Timothy Ray Brown oo fayrusku uu ku dhacay sanadkii 1996. 12 sano kadib ayaa waxaa ninkan dib loo beeray stem cell-kiisa oo la bedelay muddo 3 sano ah oo isxigxigtay oo la baarayay wax raad ah oo cudurka uu ku reebay, balse waxba lagama helin. Waana lagu guuleystay tijaabooyinkaas sida ay sheegayaan baarayaashani.